حقوق دمرك لو لها با لا ترنيا عاوي اذا دعا الرجل زوجته ننكو هدو حاسكيسا او ييدو codsado u yeedho faltaati nabiga ha u timaado boori maxaad iga rabtaa ay sadhiya iyadoo fadhide yaani ha soo kacdo ha u timaado dantiisa u sheegto wa in kaanad haba joogto subanu ila ala tanuri foornadaba ha kibisti iyo canjaridu ha dubayso aydo culimadu tanur nabiga muxuu hal qabsaday waa qaayo waa xilliga dumarku ugu hul badan yihiin waa xilliga haweenaydu ugu hawl badan tahay ugu hawlantay ugu mashquul badan tahay way wax kan shay haysan ma jiro haday meel jileecdo waxa ka gubanaya kibisti dabki baa leefaya waa in isheedu iyo gacanteedu iyo faraha waxay kula isla jiraan way halkaas uu nabigu qaaya gaarsiya ayadoo canjeeridu dubaysa oo birta dabka u saaran tahay ama muufadii foornada ay ugu jirto ama rootiga ugu jiro foornada iyo tanuurka haduu ninkeedu u yeedho ha u timaado halkaas uu subhanahu wa ta'ala rawahu at-Tirmidhi والنسائي وقال الترمذي حديث حسن طيالسي ووريان ابن ابي شيبه ووري حديث ووريان اذا waxay kaga mashquul kartama jiro weey maxaa yeelay waa iniga soo sheegnay asaga ugu xaq badan gabadha ninkeedu aabaheed buu ka xaq badan yahay hooyadeed buu ka xaq badan yahay cid kala dhibar marka hadii ninku hooyo iyo aababa ka xaq badan yahay cid kala miyaad dhiman cid kala ma dhimano laakiin dumarka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin ninka iyo waalidku waxa xaq badan he waalidka cid qabta ma jirto la socdaada waa mas'alatu ijmaa in zawjku uu ka xaq badan yahay labada waalid marka dumarka la marayo حديث با كيمت خارج الصحيحين حلي صبنا عليه الصلاه والسلام اذا دقر كنا تحسينيان gabadh ba aabaheed ba xanuunsaday markaas ninkeeda waxay ku tiri waalidkii ba xanuunsade ee fasax aan soo baxnaaniye aan soo marliye markaas uu ma baxaysid bay iska sabirtay duqi ba geeriyooday waxay tiri bal ee fasaxada inaan marliyo oo xanuunkiisa wax ka ogaadad ii diiday bal aan janaasiisa ka qayb galo marka aan ku soo tukado aab ma yuu halka ka bixi maysid reerkaadi carruurtada dhaqaaqi maysid duqi baa sida lagu xabaalay hawshu markay dhammaatay iyo maalinta nabiga u timid waxay nabi allow aabbahay baa xanuunsaday sayigaygii baan idan weydiistay inaan aabba soo salaamoon marliyo ii diiday waa iskaga dulqaatay duqi baa tii alla ku timid inaan janaaso ku soo tukadoon duqi sagootiyo ii diidan ummadii ka qayb gashay tacsida aan noqday duqa ku soo tukatay waa iska sabray bal ka waran badri zawjay hawshu sameeyay nabi wuxuu yiri aabaha alla u naxariistay oo janno ku jira waxaana jannada lagu siiyay adeecida aad zawjada aad yeesheeda ku amar saydin waxa aabaha lagu janneeyo lagu naxariistayba بطواعيتك لزوجك يريد آد يشي زوجك ضد القاطي وآبها لو جني وجننا كهلي waxay sugaysaa in laga dago odayga alam tara laga dagay sugaysaa waxa la si fiican baad yeeshay aabahan waxa lagu naxariista sabarkaadi maqalka aad maqashad u dhaga wadanaatay zawjkaada riwaayadka qaar waxay sheegayaan markay ku tinabi Allah inaan aabahay soo salaamo ii diiday atiici zawjaki zawjkaada adee inaan ku soo tukado ii diiday zawjkaada adee kadibna uu nabigu waxa loo naxariistay aabaha loo dam dhaafay hawsha aad samaysa darteed marka ninku meel weyn maxaa ninka dan khaas laga leeyahay maya shariicadu maxay ninka wax xuquuqda u siisay kala dambeyn bay rabtaa reer islaam oo dhisan bay rabtaa gurigu inuusan dumin bay rabtaa haddii la sinaado maxay dhan Soomaalidu laba qoor la qalcay iskama dayso qoor geel ma ku wada jiri kara 20 halaad laba qurbuco isla kuma hayn kartid laba rito isla kuma hayn kartid kuma jiri karaan waa la kala baxaya dad dunyadan waa inay kala dambayso xayawaankan xataa oga inuu sinaado aragtee laba orgi hadii ari la isku keero habeenka arigu nasan maayo seexan maayo qayba banaanka bari kadib ruwaagu layn boodka iska daadin hay waa taqaana nabigu wuxuu doonay kaleey salaatu wasalaam shariicadeenu reer degan oo kala dambeeyo isma qalle
kuriga waa dhashay markuu xoogu soo gaangaareen nagaf noqdo tabar galo hadduu bilaama hadalka ku soo celiyo odaygay wax ka dhaxtolan iyo wiilkiisa si loogu dhex jiro ee islaanta ugu dhex jirtay saantu naftu qabo waaga dama tolkay gaari toqayda soo fargalin meesh wiilka la hadli odayga la hadli waaga dama inuu wiilku carray u badan tahay meeqa waagan xirta niman aabahoodu soo caydiyay xirta noogu yimid kutubta nala dhageysan jiray la soo fudhiyay يعني dadku hadaysan kala dambayneen wax soconaya ma jiro gabadhu markay ninkeeda u sabarto adeecdo ilaahna ku raali galayso jannay ku helaysaa ma aha xumaan ee waa wanaag dariiqada islaamku kuwa garab maray waxay hayaan soo weydiiyay adduunka reer Yurub reer galbeed hadda waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan u noqono 1960 u noolaan jiray ma dhageysateen North America ka taaganta doodaha ka socda idaacadahooda doodaha ka socda waxaan rabnaa waa in loo noqdo sidii loo noolaa 1960 ilaa 70 wixii ka dambeeyay fasaad ku bilowday dhahay maxaad ahaan jirteen rag iyo dumar kala soocan kala dambeeya caruur iyo wadaad iyo odayga dhalo iswata reer wada socdo meel tagay ma jiray dhahan waan burburayba aafan ugu horeynin waxaan ku haysaan horumarka waxaan rabnaa in loo celiyo 1960 idinku maxaa rabtaan kuwii guriga ka baxayoobay ee ilaaha waxaan hormaynaba hal weyn ya tubtu naciliya leh idinku waxa leeyahay hore noo wada ma waa ya bogta hore noo wada aad isu ilaaliya